qashin iyo qurmoon qolka lagu mahaystay qori iyo qaaciis waa la qubay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا حاجي سيدة قسمتها هي فضيحة هولبا تايتل اللي هاي سيدة فضيحة دي ووتر جيت فضيحة دي إيران جيت تم وحلو بهي فضيحة دي رفقي جيت. سؤال سيدي كواد وحي ككوانتها هي سيدة خضب كواد محا كوغو قصبي إن رفقي جيت شاعت كقادد عيبت بنانك أتصل سارتيت خذب كل بعض محا وصل سارتيت بشا غيريسن أو رمضان كا خذب كستحاد دتك كل شقيين مع MI5 كا سكوتلاند يارد مسكلا عيد كلا كل شقيين. حسن وقسلاي مرتقر على أهو ما توحن جوي كل عزماده هذا كإبد سؤال شاذ كواد وحيد ووتر جيت إيران جيت كاس والدلال أنا كده هو وين برنامج كان وحيد برنامج كصحتي الغلاب ضد الربيع اللي كوسميان ولا له هي غير فخي يا وهذا أيق الإسفشلي أو أمد تساي وهي غلاب قدام بي وهي فشلات قدام بي طلمات حربها وقت مالي وأوجد حرب الإسلام بدر على قري يا حربها البدن صوك على قري مرك حربها وجالس مرك جالس الغوغ له بالإسعاد من الغوغ في رسايو والقى فائدة ساعة تنسد أحد وإتقانا معلو أرنا إنان أهين من عيارايو وحقرب يقوسي مالي وحانا مرقات يقوف ريسا رجل أيجي الصوب بندقي وعجلوينك أدونك وصدري قادر للغنقي من دق الباب حسب جباب والله تصنطاي waad mahadsantahay baaba xaaji su-aashii labaad waxay tahay baaba xaaji soo saaridda fadeexadda reer faqigeed dad badan waxay kugu eedeeyeen inaad shaqaysatay jawaan bariid iyo kartoon baasto maxaad ka leedahay arrintaas حسن وحنسيب دراءه وحن عنك أرديها أبيس توصيف عنه كثير حدنا دوم عليك يصيف عنه كثير حمان طور يسمان طور يا أردي في عن معه مركزي واحد كمد إيه أردي بدت وأدوك كباسا متكملة فنك عن سوق لي مركب على الوطن على عكيس اللي قولي كده البريد الباس على الوجه كده واتقانا مركب البريز ليه وشجن ما هو بكلم هذه العائلة الواحدة الكار واحد يعني وحنا أمر ما استوى هذه واحد هو تاس ليه هودين بعدي بريد مانتو يبون شالسيها حسن وحلقنا مرات جبرت أو فن أهان إخبار أهان وحكوسية ترازي وحكوسية باديو بريد مانتوي بون شالسيها مركبها وقوضا ما كسكرتها وانا ما أتصدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا حاجي سؤالي أن قصوا لابتي واجب كي كان سوق قلت مركوري وما سنتاي جوابتي سؤال شلوات. بابا حاجي سؤال سدحات وحيتاي فيديو كليب ككوات رفقي جيت وحن مقلنا وضي مساكين أو للدورتي دهاي أنيقا غير ورور ميه واي إسكا دافو واين إتكل ودورون واين taas waxa fiican xasanow aniga say ila tahay in odag naftiisa la warsado la dhaho adiga markii lagu dooranayay ma hurdaysi ma soo jeedi iyo markii tiri aniga tabar ma hay marabi oo laga diiday in wax kasta qiimaha doon ma wala xisaabtan miya warkay koowaad su'aasha labaad waxa ku jirtay in la rabay inqilaab in la sameeyo
waad mahadsantahay baaba xaaji su-aasheeda afraad baaba xaaji waxaa waaye video clipka labaad waxaan maqalnay isla odaygii oo la dooranay oo amar la siinay sidii uu hadli lahay ma laga yaabaa odaygaas ceebooway inuu iscasili doono waayo awood iyo power odayaal kale kula hor fadhiisto ma qabo maxaad ka leedahay arrintaas baaba xaaji aniga aan hubin laakiin 80% ilaa 75 inay u agtahay in loo hubo waxaa laga yaabaa wiigan inuu odayga casumaad samee doono oo xilka iska casili doono afar ah casumaad afar ah oo samee doono ayaan banaanka ka maqlay laakiin run miyaa been miyaa ilaaha og oo dhowr aniga bas waayo waa is casili ceeb intaana igu filan aan maqlay laakiin run miyaa been miyaa ma ogi mahadsanid baaba xaaji baaba xaaji su-aashii shanaad waxay tahay isla video clipka labaad reer faqigeed maxay macnihiisa ay tahay haddii oday aad noo noqonaysid aadna hogaaminaysid waana aragtay dadkii aan nahay anaga maxay macnihiisa tahay hadalkaas xasan mar haddii meel inqilaab la sameynayo wax la arko waa lagu hadlaa awood iyo wax kasta waa la sheeganaa si inqilaabka u fulo marka ayaga hadda wixinay waa noo jeedaa waa yireen hadda waxay yihiin waa la arkay markay qalad waxay ku sameeyeen waxay ku hadleen sirtii wixii ay ayaga wax soo geliyeen banaanka ayagoo inqilaabka aan dhigin marka hadda warqadii laga horkeenin inqilaabka waa fashalme saas waay mahadsanid baaba xaaji baaba xaaji su-aashiisa lixaad waxay tahay odaygii hore odaygaan ka horeeyey yuu ahaa maxaana loo qaaday shaqada muxuuna qaban jiray bal faahfaahin gaaban naga sii bal sanow haddaan aljawaab aan ku siiyo maahan qabiilo fara badan ayaa magaalada london ku nool badan ayaa magaalada london ku nool sanow haddaan aljawaab aan ku siiyo maahan qabiilo fara badan ayaa magaalada london ku nool oo kamid ah reer fakhay ashraaf camuudi baafadal reer sheekh cabdisamed gudmane dhabarweyne moosho tiro intaas ka badan oo soomaali ka timid marka qabiil la arko inta wuxuu ku leeyahay laba shuqul markii ziyaara awowgooda la gaaro inay lacag soo diraan ay dhigaan wan iyo markii soonka la gaaro dadka soomaaliya xagga jooga lacag in loo aruuriyo marka qabiilkan waxay isku qabteen iyo waxay isku haastaan ilaa hadda waxaa la la'yahay macnihiisa dadaa soo baxeen hili oo jaga doon ah oo hadda haddii la warsada jagaa doonaysiin maxaa waaye ayna ogeen laakiin hadda kulli waxay kusoo biishu wati arrimihii markii kashifaadaan dhacday inqilaabkii dhacday hadda xali waxaa u dambeysay wafdiyaa la soo diray oo hogaaminayo cadnaan sheekh cadnaan oo lahayo heshiis ayaan rabnaa hadda aa socdaa marka heshiis wuxuu ku dhamaan doonaa kolay aniga maxaa loo ahan ima quseeyo laakiin waxaan leenahay waa arki doonaa wax ku dhamaan doono baaba xaaji waxaan le waxay ahayd su-aasheedii maadaama aan sida oo aan aragtidan u aragnay laftaan oo reer faqi rabaan inay gooni ay u baxaan ee ayaga ay tashtaan oo dadka kale oo la shirayn odayaasha kale iyo lafaha kale dhibaatada oo ka imaan doonto arrintan waayo qoys badan iyo reer badanaa jira baaba xaaji oo lama laf ah oo isdhexgalay maxay tahay dhibaatooyin badanaa ka imaan doonta marka wax ma iga siini kartaa xasan hortaa shar wixii ah ilaahay hanaga hayo
dadkan weli ma bixin way bixi lahaayeen laakiin hadda awooday ku baxaan maba haayaan sii umudaan maadaama ay arji soo direen ee lafihii kale u soo direen inay dhihi doonaan ama waa gefni ama waa soo hooyani ama wax kale ilaah og laakiin ilaahay khayr ha keeno mahadsanid baaba xaaji su-aashiis diiwaad waxay tahay odayaasha kale maxay ka leeyihiin fadeexadan rafaqi gate waxaan maqalnay inay shir albaaba oo u xiran ee fadhiisteen warbixin ma naga siin kartaa arrinta ma ogi markay sababtoo aniga nin herfaqay ma ihi aniga nin guddiga herfaqa ku jira ma ihi waxaan ka sheego dembi iga soo gaaraya mahadsanid baaba xaaji su-aasheedii sagaalaad baaba xaaji maadaama bilkheyr aan jirno maxaad lafta reer faqi oo rabaan inay goostaan kula talin lahayd aad ugu duceyn lahayd xasan waa su-aal fiican adiga haddaa markasta tiraahid ay rabeen ama ay goostaan ama waxay naqaayaan dad gurub oo xoog badan oo jiraan maahan dad odayaal ayaa dad lug gooyey dhalinyaro yaryar wixiina waa laga hortagay wixiina waa dhammaaday ilmo yaray ahaayeen oo ay rabeen barnaamij oo ayaga istusiyey inuu u soconayo wauna u soco waayey hadda waxaa laga sugooyaa nuucay u soo hooyi lahaayeen bes waana dhammaatay shukran baaba xaaji waa mahadsan tahay baaba xaaji su-aashadii ugu dambeysay ma laga yaabaa baaba xaaji arrintan in dad odayaal oo dhalinyaradan soo direen inay jiraan ee arrimahan ku kaca in la dhahay oo ka dambeeyaan aniga ma ila aha marka odi wax inuu dhisa maane odi wax ma dumiyo waxaa la yidhi waalid warkiisa haddii la maqli lahay waraawa wax ma cuneen marka odayaal badanaa la khayaanay hadda way ogaadeen sida maanta banaanka aan ka maqlayay yaa kole xasanow ilaahay khayra keeno waa ramadaan mahadsanid boqolkiiba boqol baaba xaaji anyway well done wassalaamu calaykum waraxmatullaahi watacaala wabarakaatu mahadsan tahay walaalkayga saaxibkayga ama wiilkayga ama ardaygayga xasan kamaal khayr baan ku rajeynayaa ramadaan kariim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتهين ولا ريال أو قدام به بابا حاجي معلو مركوا كنا أنيا سؤالون وأسك قضاء كلابة هذا الشقي وحيالها ولا وجرا كلابة سؤالون كان قضاء كلابة قلال أيان كسو قد بندونا كلابة يعني وحا عمكاقه وعجائب له يعني ninkii oo adigii oo caleemasaarkii ayaa waxaan maqlay inuu iscasilayo oo tanaasul iyo tawaaduc uu sameynayo oo rag badana u tageena la yiri su-aashaana adiga ayaan kuu soo jeedinayaa baaba xaaji arrintan ka waran maxaad ka dhihi lahayd inaad ka soo jawaabtaan rabay marka su-aasha koowaad waa kaas saas ay tahay meesha waxaa lala baayactamooyaa sadiiq shiiqe iyo cadnaan muumin faqi afdal arrintii gorgortan iyo wadahadal ayaa ka socda iyo waano marka su-aasha koowaad aan soo gudbiyi kaasay ahayd su-aasha lamaad haddaan ku soo xijiyo waxay tahay waxaan maqlay yacni mid oo adiga inuu la baxsaday oo waddankii ka tagay oo waddanka Soomaaliya aaday marka oo lafihiisa u naxay marka see wax u jiraan arrintaas marka asbaabaha keenayna maxay tahay qofkaas
cabdullaahi cumar cabdullaahi xalwo oo ayaa wax ka dayay. su-aasha labaad waa su-aashaas, iyo su-aasha saddexaad oo aniga aan isweydiinayo waxay tahay, marka maxay tahay yacni reer faqay oo qofka ku tilmaamayo shiiqaal, ma isagaa saxsan mase dadka kalaa qaldan? su-aalahaas horta iga soo jawaab. su-aalaha kala xigto tafaasiilkiisa anaa soo gudbin doono, marka intaana iga soo jawaabtid ayaan rajaynayaa baaba xaaji maclow. baaraka allah fiik. su-aashaada koowaad baan kaaga jawaabanay. ninkii cadnaan la dhahay iyo sadiiq laba su-aal ayaa la dhex dhigay. waxaa la yidhi wafdiga ku yimid yaa hogaaminayey? waxay dhaheen waxaa hogaaminayey xaaraanta xishmee iyo xawaal ma xasuusto. marka waxaa la yidhi nin reer faqay kala geeyey oo saddexda oday kala saaray afka uu nabadda ku imaanayo, macnihiisa maxay tahay? waa inuu yimaadaa ninka madaxweynaha loo doortay oo codsi soo fidsadaa kow. tan labaadne waa inuu sameeyaa intaan codsiga iyo heshiiska aan lasugu imaanin in xaflad ou sameeyaa oo qirtaa dembigiisa oo ku dhawaaqaa istiqaala. marka asoo shaksi caadi ah markaas in heshiis lala galo. laakiin hadda ayadoo dowladda dhisan tahay in la heshiiyo ma anfacaya dheheen qaar ka mid ah odayaasha, sida warkaan u helay. haddana waxaa jirtay abuuqarow codsi kale lasoo jeediyey in afur la sameeyo oo loo sameeyo shaksi ahaan doctor khaalid maxoo iyo zalla oo heshiisin oo qarsoodi la sameeyo. odayaasha way diideen oo afurkaas waxay dhaheen heshiiska nagama diidani, dad muslimaa nahay, laakiin horta waxaa rabnaa in lagu dhawaaqo dowladdii oo loo carab dhaway inay ku dhawaaqaan dowladdaas ma jirto si loo maqlo adduun weynaha. markaas ayaan isku imaan doonaa oo dembiilayaasha nala keeno waxay dembi sameeyeen. iyo shalay waxaan maqalnay xilkii afhayeenka maamulka lacagta in laga qaaday naasir xuseen. saasaa kuu sheegaa. abuukar shooble su-aashaada lamaad markaan ka jawaab waayo, rag ayaga ka mid ah oo warka noo soo gudbiyey waxay sheegeen xataa ziyaaradii labaad aafaqay aboor inuu asaga ku dhawaaqay in la sameeyo. markii jarmal laga soo qeeliyey oo loo bedelay kombala-aano asaga wuu carooday, Geneva u aaday kow. hadda markii odaygi ou iscasiraad dhiibay oo wili casumaadaan sameynaa istiqaalan ku dhaqaaqaa, raggiina odayaashana guddigan bixiyey in loo tago, waxaan rabnaa heshiisin. markau maqline wuu u orday xamarna waxaan maqlin guddigii oo rabay inuu ka qayb galo intuu hawada ku maqnay in guddigii la dhisay iyo in uu rabay in uu qaado lacagtii cabdinuur reer cabdinuur xamar inuu geeyo oo isla galabtii ahaane oo ninkiisa lala dhahay seef lasoo baxay iyo canaan iyo kulli uu kala bursaday. saasay wax u jiraan. marka ilaahay kheyr ha keeno. tan arrintan shiiqaalka iyo reerfaqayga waxay u taalaa odayaasha oo wileen bacda ramadaan ayaan tallaabo kulul ka soo saari doonaa. waana mahadsantihiin adiga iyo xasan kamaal halkaana ugu baxay. insha allah ramadaan kariim kheyr baa idin rajeynaya. fadlan olooyinkiina manchester iska raali ahaada safka ku jira. habeen dambe aniga nafteeda waxaan warsanayaa su-aalaha 6 su-aal fanaanka weyn maxamed cali xaaji macoo ra'iis iyo aniga ayaa noo furmaya dood. ramadaan kariim. باي باي. qashii qurmoon qolka lagu mahayste qori
iyo qaaciis waa la qubaa